بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برنامجكeenna kooban waxaan ku soo qaadaynaa xaaladihii ugu dambeeyay maxaa kula gobolka Sanaag gaar ahaan magaalada Ceergaabo oo meel fiican maraya waxa weeye maxaa kula oo u dhaxayso Ceergaabo in qolo waliba ay daanteeda u tashato iyo in laga wada barakaco ayna wada gubato dhamaanteed halka ay taagan tahay waxa weeye Ceergaabo oo gubata oo waxa weeye laga wada qaxo oo meel banaan noqota iyo in qolo waliba daanteeda ay maamulato weeye maxaa ku raday hadafka maanta gorgortanku halka uu saarayo miiska wax yaala wataa weeye waxaan leeyahay waa guul waxa weeye 3 casho ka bacdi in halka uu hadal maartay qorshuhu marayo waxa weeye aad bay guul u tahay waxa kale oo guul ah nimankii dawladnimada sheeganayay in ay barakaca ugu horeeyeen iyagu oo ay faaruqiyaan magaaladii waxa weeye dadkii waxa weeye maxaa ku raday ay lahaayeen ay loo dawladeynayeen ay wali ku sugan yihiin iyana waa guul kale waxaan leeyahay jamaahiirta xaqu dirirka waxaan kaloo waxa weeye maxaa ku raday kelmad ka oranayo odayada baaqyada soo diraya ama dhinaca hartaha noqoto ama dhinaca garxijisa noqoto waxa loo baahan yahay qaylo gardhaweyse wada hadalka odayada warkooda waynu tixgelinaynaa laakiin waxa weeye waxay dhariga maxaa ka keenay kuleelka ka keenay waxa weeye wixii dhagarta keenay dadka waxa weeye sida maxaa kula wuxuushnimada waxa weeye dadka ula dhaqmayay 34 sano waqtigoodii waa dhamaaday marka waxa weeye maxaa kula Salmaan dhiigi Salmaan iyo waxa weeye maxaa kula ganacsadii ka dambeeyayna waxa weeye waa gobonnimadu waa geed ku baxay dhiiga geesiga weeye gobonnimadii dhiigii ku daatay waxa weeye dhiigaas ayaa u noqonaya waxa weeye maxaa ku raday magaranaysa abuurkii maxaa ku raday gobonnimada saadarteed waxaan leeyahay geesiyaasha SSC meel kasto aad joogtaan diyaar garooba waad ogeydeen waxa weeye maxaa ku raday maanta maalin odayma sababtu tahay waxa weeye maxaa ku raday ninkan waranka weedhaadu deeqin warkaagu ma deeqo weedhaadu ma deeqdo waxaan u baahanahay in aad waxa weeye waad aragtaan Ceergaabo waxa weeye idinkoon soo badhawaa baa laga qaxay oo lagu kala qaxayba marka waxa weeye guushu waxa weeye waa in yar cagaha dhulka ku hayso waad haysaan guushi reer SSCO yaan dib looga noqon odayada hadlaya meelaha ka hadlayana waxaan leeyahay waa idin furan hadalka odayaal dhalinyaradana waxaan leeyahay dhalinyaro halganka maamulka SSC ee ka dhacda reer SSC ay haystaan waxa dhalay dhalinyaro kacdoon dhalinyaro baa dhalay garaadna ma keenin ugaasna ma keenin meel dambe ka soo raaceen tareenka meel dambe ka soo raaceen isagoo tareenku socdo oo hawada uu marayo oo caalamka dhan uu ka yaaban yahay oo xawaaraha uu ka soconayo waxa weeye aan wax ku socda ama aan jirin ayay yimaadeen dhaqanku halkaas ay ka soo fuuleen iyana way sii dhameystireen barakallahu fiik laakiin waxaynu u baahanahay inaynu halganka insha Allah aynu kicino marka hore halganka in la kiciyo dhalinyarada waxa weeye SSC gobol kasta degmo kasta tuulo kasta ay joogaanba waxa weeye waa in halgan ku dhaqaaqo waa inaan waxa weeye insha Allah bidmillaahi kariim xuquuqda ilaahay ina siiyay cidna u daba fadhiisan mayno wax allaale wuxuu doona ha noqdo waa inaad heshaan xuquuqdiina insha Allah aad ku leedihiin gobolka Sanaag magaalada Ceergaabo xuquuqda aad ku leedihiin dhalinyarada reer SSC ama kuwa bariga ha noqdo ama kuwa koonfurta ha noqdo waa inaad xuquuqdiina heshaan sandulle weeye gacanteena ku jirtaa ilaahayna ha idin waafajiyo baan idin leeyahay guul iyo gobonnimo waxaan intaa idin ku darayaa insha Allah barnaamijka waynu badin doonaa haddii alla yari xornimada waxa weeye maxaa ku leedahay magaranaysa maxaa ku leedahay Ceergaabo darteed baynu soo celinaynaa live-kii insha Allah bidmillaahi kariim wixii bari ka dambeeya waxaynu soo galaynaa live baynu soo galaynaa insha Allah bidmillaahi kariim si joogto ah insha Allah inta aynu maxaa ku raday inta uu dhalanayo hadafka aynu gaarayno insha Allah guuleysta baan qof kasto oo fariintaynu soo gaadhow si shargare garaadada iyo cuqaasha iyo waxa weeye dhammaan cid kastoo nin garbooda waxaan leeyahay hal la taageero halganka hal la taageero sidii maxaa ku raday gobolka Sanaag Ceergaabo ay gacanta SSC qaatimo ay ugu soo noqon lahayd waa in laga wada shaqeeyaa dhamaanteenba waa inaynu isu wada taagnaa qof kastaana waa inuu doorkiisa ka qaataa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh